بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqaleysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ka ah wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka caawana qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo shaki weyn geliyay dhexdhexaadnimada ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble dalab cusubna u diray haddaba maxay ku tuumayaan ra'iisul wasaaraha waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay midowga musharaxiinta ee soo saareen qodobada kale ee wararkeena ka ku jira waxaa qayb ka noqon doona magaalada muqdisho waxaa soo galay dhaqdhaqaaq ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo la sheegay inay xiriin jaakadaha walxaha qarxa haddaba ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la faray inay feejignaadaan xog arintaas ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho waalidiin fara badan ayaa wiilashoodu waxay ku maqan yihiin dalka Eritrea waxaana la sheegayaa qaarkood inay ku dhintay dagaalka ka dhacay dalka Ethiopia waan soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale aad daawad doontaan waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa harab cadka loo yaqaano ee ku sugnaa magaalada Jowhar ayaa maanta gadood sameeyay haddaba maxay ka cabanayaan ciidamadaas waan idin soo gudbin doonaa oo barnaamijkeena ka ah wararka ayaadna ku daawan doontaan saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo like commentigana inoo reebaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal aynu ku bilaawno golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa shaki weyn geliyay dhexdhexaadnimada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble oo loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka dalka qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta oo loo diray wakiilada beesha caalamka iyo dhinacyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha midowga musharaxiinta ay si weyn ugu wadaacsan yihiin in maxamed xuseen roble oo u nuglaaday cadaadis ugu imaanaya dibadda oo meesha ka saaraysa baalidii dhexdhexaadnimadii loogu fadhiyay inuu ka xalin karo khilaafka doorashada midowga musharaxiintu waxay ugu baaqeen ra'iisul wasaare roble inuu muujiyo madaxbannaanidiisa isla markaana joojiyo safarada dibadda ee waqtiga lumiska ah kana shaqeeyo baalidii sidii loo baabi'in lahaa sidii loo bilaabi lahaa doorasho oo loo dhan yahay ayna dadka Soomaaliyeed ay aqbali karaan waxaan ku boorinaynaa Mr. Roble inuu muujiyo inuu yahay mid madax bannaan isla markaana joojiyo safarada dibadda ee muhiimka ah ahayn waqti lumiska ah howlgallo doorashona loo dhan yahay oo Soomaaliya oo dhan ay ku qanacdo isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabo ayay qoraalkooda ku sheegeen golaha midowga musharaxiinta mucaaradka arrintan ayaa ka dambeysay kadib ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble tan iyo markii lagu wareejiyay xilka amniga guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka ayaa wuxuu bilaabay kulmada siyaasadeed oo la qaadanaya mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar kale oo ka tirsan bulshada rayidka wasaare roble ayaa waxa uu safar ku tagay dalka Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale dalka Djibouti halkaas oo ka qayb galay cali masaarka madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Umar Geele taas oo siyaabooyin kala duwan looga hadlayay safarkii uu ku tagay dalka Sacuudi Carabiya dhinaca kalena saaxiibayaal magaalada muqdisho waxaa laga cabsi qabaa in ay ka dhacaan maalmaha soo socda qaraxyo waaweyn oo ah kuwa ismiidaamin ah isla markaana ay ka fuliyaan dagaalamayaasha al-shabaab ilo wareedo ka tirsan hay'adaha ammaanka Soomaaliya iyo kuwa ajaanibka ee degan xerada xalane ayaa waxa ay sheegeen inay heleen xogo amni oo muhiim ah oo ku saabsan qaraxyo ka dhici kara magaalada muqdisho xogaha la helay ayaa warinaya in magaalada muqdisho ay soo galeen rag isku soo xiray waxyaabaha qarxa kuwaas oo ka yimid dhinaca shabeellaha hoose ee koonfurta Soomaaliya kuwaas oo doonaya inay weeraro ismiidaamin ay ka fuliyaan magaalada mas'uuliyiinta kuwa ammaanka ayaa waxa ay ka wararka u sheegeen in kooxaha magaalada soo galay isla markaana dimacsan yihiin inay isqarxiyaan isla markaana waxa ay tiradooda ay gaareen ilaa 8 qofood sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in bartilmaameedku yahay saldhigyada ciidamada wasaaradaha hoteelo iyo maqaayado sidoo kale waxaa la sheegay in kooxdan ay weerari karaan goobaha lagu badan yahay ragga qaraxyada lagu soo xiray ee soo galay magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo qaraxyadii ugu dambeeyay ka fuliyay saldhigga degmada Waaberi waxaana ku dhintay dad badan oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda federaalka sidoo kale maalmo ka hor waxaa baraha bulshada lagu baahiyay qoraal lagu sheegay in uu ka soo baxay hay'adaha degan xerada xalane ee muqdisho kaas oo ka digayay qaraxyada ka dhici kara muqdisho waana maalmahan wajahaysa mashquul badan oo ka dhanka ah Ciidul Fadriga inkastoo hadda ciidda ay soo gabagabowday isla markaana dadka ay u muuqdaan kuwa markaas ku laabanaya shaqooyinkoodii caadiga ahaa weli waxaad daawanaysaan saaxiibayaal barnaamijkeena ka ah warar fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay subscribe ka saar gambaleelkana furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like-na inoo reebaya
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. markan magaalada jowhar ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee haramcad ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle ka sameeyeen maanta gadood. ciidamadan oo dalbaday in dib loogu soo celiyo Muqdisho ayaa gabi ahaan bixirtay wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada, taas oo muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka, iyaga oo marka qaarna ridaya rasaas goosgoos ah. ciidamadan ayaana markii hore laga soo qaaday Muqdisho xilli ay dhicisay doorashada madaxtinimo ee maamulka Hirshabelle, waxayna hadda ay dalbanayaan in caasimadda dib loogu soo celiyo ehelooda iyo xaasaskoodana si ay ugu warqabaan. ciidamada gadoodka sameeyay ayaa qalqal amni ka abuuray gudaha magaalada caasimadda ee Hirshabelle, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay ganacsiga iyo socodka, sida ay qaar ka mid ah dadka deegaanka ay u sheegeen kaaha wararka. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada gadoodka sameeyay oo saacado kala xirtay magaalada dib loogu soo celiyay xeryahooda kadib markii ay la kulmeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliiska. lamago ilaa hadda saraakiisha ay ka aqbaleen dalabka ciidamada gadoodka sameeyay iyo isfahamka kale ee laga gaaray xiisada markaas ka dhalatay gadoodka ay sameeyeen ciidamada booliiska, gaar ahaan kuwa haramcad ee ku sugan magaalada jowhar. qaybihii dhexe ee barnaamijka kaaha wararka ayaadna daawanaysaan saaxiibayaal. fadlan janaalkeena haddii aad ku cusub tahay subscribe-ka saar, gambareelkan u furo, una sheergaray saaxiibada meel kasta ay joogaan, adigoo like commentigana inoo reebaya. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. fadlan nagu dhiirigeliya in aan soo gudbino wararkii ugu dambeeyay arrimaha gudaha iyo caalamka ka dhacaya. markaana Muqdisho magaalada Muqdisho, gaar ahaan taalada Darajik Daason ee degmada Boondheere, waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dowladda federaaliga ee Soomaaliya, kaas oo dhigayeen waalidiin badan oo wiilal ay dhaleen ugu maqan dalka Eritrea. waalidiintan oo isugu jira haween iyo aabbayaal ayaa waxa ay sheegeen in wiilashoodii ay dhaleen ay in muddo ah tababar ugu maqan yihiin dalka Eritrea, kuwaas oo dowladda federaalka ah ay qaaday si loo askariyo. banaanbaxayaasha waalidiinta ahaa ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in xitaa carruurtooda aysan in muddaha maqan hadalkooda, islamarkaana ay la-yihiin, iyagoona ugu baaqi madaxda dowladda federaalka inay dib u celiyaan wiilashooda loo qaada dalka Eritrea. sidoo kale waalidiinta ayaa si gaar ah madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu dalbaday inuu hor yimaado uuna ka qanciyo cabashada ay qabaan ay la xiriirta carruurta ka maqan waalidiinta Soomaaliyeed. si kastaba magaalada Muqdisho waxaa horey uga dhacay banaanbaxyo ay dhigayaan waalidiinta ku dalbanaya in carruurtooda dib loogu soo celiyo oo haatan ku maqan dowladda federaalka uguna qaaday dalka Eritrea tababar ahaan. waxaana qaar ka mid ah waalidiinta ay horey u sheegeen in carruurtooda ay ku geeriyoodeen dagaalo ka dhacay dalka Itoobiya oo u dhexeeyay dibadda TPLF iyo ciidamada militariga ee wadanka Itoobiya, halkaas oo khasaaro culus lagu gaarsiiyay jabhaddii TPLF. qaybihii gabagabada ee barnaamijkeena kaaha wararka ayaan kusii dhownahay daawadayaal. idinkana ha moogaanina in aad subscribe-ka inoo saartaan, islamarkaana aad nagu dhiirigelisaan in aan soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee markaasi taagan. markaana wararka Soomaalida ka baxsan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxaa weli socda duqeymaha ay Israa'iil ka wado dhulka Gaza, kuwaas oo ay ugu jawaabayso sida ay sheegtay gantaalaha looga soo ridayo Gaza, waxaana uu dagaalka galay maalintii 7aad oo xiriir ah. duqeymaha cirka Israa'iil ee magaalada Gaza ayaa hadda maanta waxaa ku dhintay 23 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. duqeynta maanta ayaa ahayd tii ugu dhimashada badneed tan iyo markii uu toddobaadkii hore dagaalkan ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. subaxnimadii hore ee hadda maanta Israa'iil ayaa duqeysay guriga Yahya al-Sinwar oo ah hogaamiyaha ugu sareeya Xamaas ee Gaza, waxa uu dagaal ka galay maalintii 7aad oo xiriir ah. si rasmi ah looma oga in Sinwar uu guriga ku sugnaa iyo in kale. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa warisay in ay u badan tahay in isaga iyo madaxda kale ee ay ku dhaawacmeen ama ay ku dhumanayaan. wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan duqeymaha, waxa uuna saakay duqeymaha ay diyaaradaha Israa'iil subaxnimadii hore ee saakay ka fuliyeen Gaza ay ku dileen ugu yaraan 3 qofood. duqeymaha Israa'iil ayaa sidoo kale sababay dhimashada 10 qofood oo hal qoys ah, kuwaas oo ku sugnaa xiriiq qaxootiga ku taala Gaza, waxaana qoyskaas dhan ka badbaaday wiil yar oo magaciisa lagu sheegay Cumar Al-Hadi oo 5 bilood jiray. Cumar Al-Hadi oo dhaawac uu soo gaaray ayaa duqeymaha Israa'iil ku weeyay hooyadii 4 walaalihiis ah iyo habartiis iyo 4 ilmo ay maadeer yihiin, sida laga soo wariyay dagaalka ka socda Gaza. dagaalyahanada Falastiin ayaa 278 gantaal oo ay ka soo gameen Gaza ku weeraray magaalooyinka koonfurta Israa'iil ku yaala ee Ashdod, Beersheba iyo Zadrod, sida uu sheegay militariga Yahuudda. gantaaladaas intooda badan uu ka hortagayay habka difaaca gantaalada Israa'iil. gantaal ku dhacay wadada lagu magacaabo Ramad oo markaasi ka tirsan xaafadda Tel Aviv magaaladaas, waxaana ku dhintay 1 nin
uu fulinka dagaalka gurigiisa ugu tagay. sidoo kale waxa uu militariga yuhuudda sheegay in 7 qof oo kale ay ayagu dhinteen gantaaladaas iyadoona la rumaysan yahay in yuhuudda ay qarsanayaan dabka kasoo gaaray. khasaaraha ugu dambeeyay ayaa tirada guud ee shacabka ay yuhuudda xasuuqeen ka dhigaysa 148 qofood ay ku jiraan ugu yaraan 40 caruur ah. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 580 qofood. dhinaca kale dowladda qatar ayaa si kul uga hadashay dagaalka Gaza iyadoona afartay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo arxandarada Israa'iil iyo weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah shacabka Gaza. wasiirka arrimaha dibadda Qatar oo shalay la kulmay madaxda siyaasadda ee Xamaas ayaa waxa uu ku baaqay in Israa'iil ay joojiso duqeymaha ay ka wado Gaza sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Qatar. bulshada caalamka waa inay si degdeg ah ugu dhaqaaqaan in la soo gabagabeeyo arxandarada Israa'iil iyo weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah shacabka Gaza iyo Masjidka Al-Aqsa ee Qudus, ayuu yiri Sheekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ku yiri bayaan uu soo saaray ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee QNA. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena ka ah wararka aad kala socoteen janaalka ka ah wararka oo aan kusoo gudbinay wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka ee xilliga taagan. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saar oo gambalka furo wana share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like-gana inoo reebaya aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina.